السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين به مال كستا يستكستوا عن الله سعتان به. وحنا دلنا يالكني وتلفزيون كعالمي الصومالي إثيوبيا TV. داود يال وحنا نسوق قرني هذه الوقت كانوا كلاتي عن نقبرتان. ناس توصل مركزي عن ودين كسو قد بنه برامج كني دكتور حرفضها. داود البرامج كنا ندكتور حرفضها تضبط كني هي وحنا كسو قادن دونا وكلية حرفضها هي فرسمة جعنتها جرأهان واحد إذا جديدك وسيدا دو جدا بوقت حاضر كني أنه كسو قلنا هاي واحدة مركز اللي جبره أما واحدة فرسمة جديدك ومركز أرضية كلادون وحكبرت كلية دني جرأهان واحدة جديدك أي كبرتان مركز لنا على جديدك يلا سيدا مركز سوية جدنا ومركز يقول كني أردن هاي جودة أهم بقلب كل لوجو تلاجلاي إني أرضية دني مركز سيدا لوجو تلاجلاي أو قاتان براكتيكالka amaba maxaan ku dhahay trainingiga kala duwan ee markaasi looga baahan yahay dhinaca gaadiidka qalabkan aad arkaysaan waa qalabkii markaasi loogu talagalay guud ahaanba gaadiidka amaba gaariga oo markaasi furfuran isla markaasina ardaydani ay markaasi furfurayaan amaba ay xirxirayaan si hadhow toolay u noqdaan arday ka dhisan dhinaca beeska gaadiidka isla markaasina dhinaca gaadiidka ay u noqdaan arday khibrad dheer markaas u leh برنامجكنا عندك توجنت حرفضها أي داود يلا واحد اللي نسوق سين دونه وأنا وعبد الرزاق إبراهيم إذا جاء هل كنا على كاميرا ذا ومركز يقع عونا يو صاحب كي بعلم تاي marka xirfadan gaadiidka بالوحيابها كقول اللي أنا برضو سخاصة وحشر الدمر فربنا فكرة عجيرية مثلا نسكب ده جديدة وحبرشوين ككلاته وحوين فكرة ذا كلا ير عجيرية كير مثلا مركب الفكر كاجا وحيابها كقول اللي أنا برضو في السماء جديدك حاكم ذا ضد بدن أو يديد ويشان ما أنتون قال يعني ضد بدن أو يتهاجرين ويشان لكن واللي بيسميه دبلومة كده مستر بانس لي قاضي ليرس سمع هذا لكن وين شعله رنتي يعني مكاني قلنا قضاء أدبنا شعله شعيل كي يربي تان كي ينيله بيربي أو وحن كالي ديجان كالي ما أنت فرصة دي كبدو هلاي إن شاء الله مستر دقري مستر قاندون إن شاء الله مكاني كله يدمر وح أمسين قبضو حم قبض كرتو لكن وحنا كقبضو قبضو قبض كرتا ربي تان كي ينويرو ما شعلها إن شاء الله مكاني مدة ربي تان كي يوها إلا يرانتي إن مكان نقضو ما أنت ربي تان كي إن شاء الله وانتوليه وحنا بس بقولك كنا نسعنا بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa ciwal sheekh axmed oo wax ka barta kulliyadda farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga gaar ahaan qaybta ma garanaysaa gaadiidka marka horta su'aashii la weydiiyay ugu horeysay ma garanaysaa ijiinka ahayd ijiinka gaadhigu waa maxay ijiinka gaadhigu waxa weeyaan gaadhigu ma garanaysaa waa meesha uu ka dhaqaaqo gaadhigu ijiinku sidoo kale ijiinku waxa weeyaan gaadhigu laba ijiin buu ku shaqeeyaa ijiinkaas laba qaybood buu kala baxaa qaybi waa baadrool qaybina waa naafto marka macallimiintu wayna kala bareen qaybta baadroolka ku shaqeysa waxyaabaha ay ku shaqeyso waxyaabaha calaamadu ah waxyaabaha ma garanaysaa ayna ka maarmi kareynin sidoo kale macallimiintu waxa kale ina bareen qaybta naaftada waxa ma garanaysaa qaybta naaftadina u gaarka ah si aanan marka isugu laaqin waxayna tuseen waxyaabada aad u wanaagsan oo wax la qaata oo kii baadroolkana shaqadiisii oo gaar ah kii naaftadana shaqadiisii oo gaar ah waxa kamida sida ma garanaysaa qaybta baadroolka hadaan aan soo qaadano waxay yiraahdeen waxaad ku kala garanaysaan baadroolka waxa calaamadu ah carburetorka ama carburetorkaasi waxa weeyaan shidaalka hadaad mar aragtaan ijiin carburetor uu ku xidhan yahay waxayna waa baadrool sidoo kale waxayna bareen qaybta naaftada waxayna bareen bahal bambalida bambada haddaad aragtaan bidhaan ijiin ay ku xidhan tahay waa naafta ijiinkaasi oo bambadaasina waxaa ma garanaysaa ku sii xidhma injectaro qasabado saasay ugu sii xidhmaan carburetorkana waxay yidhahdeen waxaad ku arkaysaan ijiinka baadroolka carburetorka markuu ku xidhan yahay balaag baad ku arkaysaan balaagyaad ku arkaysaan dabsidayaala waxaad ku arkaysaan ma garanaysaa distributor oo ah ma garanaysaa carburetor carburetorku waa kan carburetorku marka wuxuu leeyahay isbaarti balaag oo kaas halka ku xidhana kuwa dhudhuban halka ku jira iyo ma garanaysaa dilkoogii oo kana
inta haddaad aragtaan bay macallimiintu yidhaahdeen waa batrool sidoo kale waxay yidhaahdeen xagganan u noqonaynaa xaggan naaftada waxay yidhahdeen haddaad aragtaan bambada bahashaas waa bambo waa bamba yidhahdeen bambada haddaad aragtaan bahashaa bambada haddaad aragtaan waxay yidhahdeen waa naafta gaadhigaasi bambadaasi injectorray xaggan ku leedahay qasabad baa xaggan ku xidhanta qasabadaasi naaftaday qaadaa injector baa la yidhahday giisaa injectorkii oo kaasa ayay dulgiisaa marka haddaad intaa aragtaan bidhaan saasaad ku kala garanaysaan qaybta ijiinku marka waa labadaa qaybood waxay u sii kala baxaan mechanic system iyo gear mechanical ba u sii kala baxaan gear mechanical waxa weeyaan haddii aan wax ka soo qaadanno mechanic system haddaan wax ka soo qaadanno haydhkanaa ka mid a haydhkan waxaa gala ma garanaysaa waalal baa gala waalalkaasi waxa weeyaan mid isfura markii ma garanaysaa hawada mid baa isfuraya labada waal kaasi waa daboolkii sare ee jiinka weeyaan halkaa rabadh baa ku jira saliidda celiya marka haddaynu usoo noqonno mechanical system jiinka labada qaybood uu sii kala baxaya mechanical system waa intan haydhkan sare weeyaan haydhkan sare sabaradani waxa weeyaan mechanical system bay ku jirtaa sabaradaasi taasi waxa weeyaan waalka ma garanaysaa labada waal ka shaqaysiisa ee kor iyo hoos up and down uga shaqaysiisa marka xabad waala haddaynu soo qaadanno uu isfurayaa kolkuu isfuro hawadii iyo baadroolkii oo shidaalkii ah iyo dabkii baa galaya intaasi markay galaan kaasi uu isxidhayaa waa labadii waal waxa weeyaan kii isfurayay markuu kaasi isxidho wuu gubanayaa gubashadii markay timaaday saddexdii ay isla gubtaan kaas exhaust ayaa isfuraya waa kii labaad baa isfuraya kii labaad markuu isfuro exhaust ayay gubashadii ay gubteen ay qaraxii ay sameeyeen bay qashin noqonayaan qashinkii markay noqdaanna dhabantaasu ka baxayaa ijiinka maad garanaysaa sida loo xidhiidho iyo sida loo furfuro waan garanayaa sida loo xidhiidho iyo sida loo furo macallimiintu wayna bareen haddii aan bilaabana waa kan waa sidan taas iminka aan furayo waxaa la yidhahdaa nadh iyo bool baa la yidhahdaa kaa sare kaab baa la yidhahdaa haye haddaan sii wado daboolkii jiinkaad qaadaysaa daboolkii jiinka markaad qaadida iska dhigtid yaad shaqadii gudaha aad bilaabanaysaa shaqadii gudaha markaad bilaabato eed dhammaysato waxaad furaysaa haddana raqabadii sabaradda taymarta ayaad furaysaa waad dhiganaysaa baashanaad qaadaysaa sabaradda taymarta la yidhahdaa waa sabaraddii taymarta sabaradda taymartu waa ta ka shaqaysiisa gaadhiga ma garanaysaa gubashadiisa iyo xidhitaan iyo ma garanaysaa qashin saaridiisa sabaradda taymarta ayaa la yidhahdaa markaa haddaynu haddana xaggan usoo noqonno waxaa la yidhaahdaa injector baa la yidhahdaa injector waa ijiinka naaftada waa ka naaftada gaadhiga u geeya hawada barna waxa kamida ijiinka oo ah laba loo kala saarayo badrool iyo naafto iyo badrool kaas oo hadana iyagu min laba u sii kala baxa ijiin system iyo ijiin mechanism marka aan soo qaadano waa inuu ahaado qof khibrad u leh ijiinkiisa qaabka loo kala saarayo waxa jira meelo badan oo wax laga hagaajinayo qayb waxa jirta hal qof kaliya uu baran karo qofku meel kale una baran karin sidaa darteed jijiga polytechnic waxaan ka helnay inaan khibrad buuxda u wada yeelno ijiinka dibadda hadda marka aan eegno waxa loo kala qaado dadka dibadda waxa yaqaanin mid waxa jira yaqaana computerka kaliya yaqaana computerka oo qaybtana iyo qof waxa jira ku takhasus kaliya cam shaftiga oo ah qaybta dhexda ku jirta ee pistonka iyo dabka dhalisa
sidaa darteed annagu waxaan khibrad yeelanay in aan barano dhammaan ijiinka sidoo ah ama badrool haada ama naafto haado inaan labadiiba khibrad aan u yeelano aan barno waxyaabaha aan barnay waxa kamid ah sidaan ijiinka aan ugu xirkibi lahayn gaariga ama aan ugu dhaqaajin lahayn meeshii dhibaatada ka aan ka dareemi lahayn sidaa darteed waxyaabaha barnay hadda waxa kamid ah ijiinka sidoo kala bax saddex baa loo kala saarayaa saddexdaas oo ah hide cylinder iyo cylinder block baa afka qalaad sidaa darteed saddexdaas oo kala baxaya sidaa darteed waxyaabaha ay qabtaan waxa kamid ah mid dabka ayuu dhaliyaa mid waa dab hawo iyo waxay kaleyn biyo sidaa darteed qofka makaaniga waxa loo baahan yahay mar kasta inuu aado qof ready ah oo diyaar garow ah xagga labiska hadii noqoto iyo xagga kaleba talabaad waxay noqotay ijiinka marka aan saddexda u kala qaadno waxa kamid ah qaybta hoose ko waxay tarkeedu waxa weyn waa dabka qaybaha dabka dhaliya sidaa darteed waxa jirta hadda hadii xaggan eegno oo kale hadda xaggan eegno waxa jirta baashan tan oo la yiraahdo spark black as oo ah shax qabadkeedu yahay inuu dab dhaliyo iyada darteed spark black qaybtan oo ku xirayso oo dabka dhalinaysa waxa jira saddex nooc oo gudaha kaga jira saddexdan waxaan u kala saarnaa waa qaybta biyaha dabka iyo naaftada iyo badroolka aduu baalku badrool yahay jingo marka ka bacdi wuxuu sameeynaa cadaadis buu sameeynaa marka adeegto cadaadiskaas sameeyay saddex shay baa ka kala dhanay mid wuxuu keenayaa hawada midna dabka ayuu keenayaa midna wuxuu keenayaa badroolka marka ka bacdi hawadu cadaadiso baasha bistoonada ayaa cadaadinaya cadaadiska ka yimid darteed ayaa waxa u dhalanaya dabkaas marka uu dhasho wuxuu tagayaa toos ilaa deynimada waxa ka baxa xarkaas oo ilaa bayteriga ilaa meelo badan fara badan sii mara sidaa darteed dabka dhashay awgeed wuxuu dhaqaajinayaa inuu ijiinka dhaqaajiyo sidaa darteed waxyaabaha kale waxa kamid ah ijiinku hadduu yahay naafto inuu ku shaqeeyo ijiin naafto ku shaqeeyo uu yahay waxaa qasabtay garanaysaa qiiqiisa marka uu badrool ku shaqeynayna qiiq ayaa labada ku kala saari kartaa waxyaabahan barnay waxa kamid ah waxa ku xidhada xaggan markaan eegno marooxada ayaa ku xidhada marooxadaas oo tagta ilaa qaybtan hore ee radiatorka oo ah tan hore uu ijiinku ku xidhmo hawada uga soo gasho iyo meelaha uu biyuhu toos u kala marmaro sidaa daraadeed waxa kale oo ku xidhma qaybtan waa daboolkaas oo ah lagu kala garto inuu qaybta ku kala shaqeynta dabka iyo naaftada iyo badroolka sidaa daraadeed xaggan waxyaabaha kale ee gala waxa kamid ah baasha afqalaad waxa la dhahaa camshaft sida aan ku baranay iyo rocker arm iyo valve springs ayaa la dhahaa sidaa daraadeed waxtarkoodu waxa weeyaan marka uu dabku dhasho inay ka shaqeysiyaan ay dabki dhaliyaan ay pistonka hoosta ka wareejiyaan xawaara ayuu ku shaqeynayaan marka waxa ka iman kara dab haddii dhibaato ka timaado xagga ijiinka waxaa ku cadaynaya xagga hore ee dirawalka ayay ka muuqata qof aan makaanig ahayna inuu dirawalnimo ku sheegto dhib ayaan u arkaa sababtoo ah mado meelo bannaan socda ama meel dee buura socda ay dhibaato ku iman karta sidee baan uga hortagi karaa baa isweydiina ijiinkii maxaad ka garanaysaa baa isweydiina haddii aad ijiinka aanad garanin adiga naftaada ahaantaadaba dhibaato ayaa kaaga iman karta sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad horta ijiinka la barto barashada gaadiidku waa mid ka mid ah xirfadaha dhig joojinta ee laga barto kulliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnic iyadoo ardayda wax ka barata waaxdan ay yihiin kuwa ay u dhameystiran yihiin guud ahaanba qalabkii ay ku baran lahaayeen farsamada gaadiidka maraan wax ka weydiinay ardaydanina waxa ku dhaliyay inay bartaan xirfadan ayaa waxa ay ku jawaabeen sababta aan u bartay aan xirfadan u doortay in mechanical-ka u baranayo horta awal lambar 1 waxa weeyaan aniga rabitaankayga ahayd markaan dugsi hoose ilaa dugsi sare markaan soo gaaray dugsi sare soo gaaray baan anigu ku xisaabtamay maxaad barataa markaa maadaama aan ku xisaabtamay maxaad barataa waxa ii soo baxday inaan barto xirfad nooc dooni ha noqoto wax aniga i anfacdo oo qacantayda iyo ma garanaysaa muruq maal aan noqdo oo xoogayga kula soo baxo marka taa maadaama aan ku xisaabtamay waxa aan go'aansaday inaan barto qaybta gaadiidka ee birta si ma garanaysaa aan uga faa'iideysto ma garanaysaa gaadiidka ku sii badanaya deegaankeena inaan ma garanaysaa aanan ilaahay mooyo cid kale aanan waxba uga baahanin iyo muruqayga aan muruq maal u noqdo sababtaas ay ugu kaliftay ma garanaysaa inaan xirfadan aan waliba khaasatan aan aad u xiiseynaya aan u soo galo ani hadda koor waxaan jeclaan jiray inaan barto water sababtoo ah xukuumadeena waxay qaadatay water
haddana gadaal waalidkayga ayaan kala tashaday kabacdi waxaa isweydiiyey water maan dhigtaa dhiga ayay u yidhaahdeen waterkan waxa isweydiina muxuu ku shaqaynaya qofka water ka shaqaynaya waxaa muhiim ah inuu gaari wato gaarigaas oo ah inuu makaanig u baahan yahay qof gaariga wax ka garanaya sidaa daraadeed aniga waxay u kalifay inaan barto gaariga qaybtan makaanigaas oo ah ijinka laftiisu makaanig ayuu baahan yahay ijinka biyaha soo tura kow laba saddex afar xukuumaddu waxay qaatay waa biyahaas laftiisa wuxuu ku shaqeeyaa waa ijinku ha ahaado noocyo badan la kala ahaado qaybtaan waxaan ka qaatay jijiga makaaniga laftiisa waxa sababaha ugu dhaliyo waxa kamid ah inaan ka shaqeeyo gawaarida dhibaatooyin badan oo walaalahayga dhibaataysan aan arkay awgeed ayaa igu kalifay magacaygu waa Sharmarka Maxamuud Xasan waxaana arday wax ka barta kulliyadda farsamada gacanta ee Jigjiga Polytechnic College run ahaantii horta mechanicalka ma ahan mid qof kale ugu dhiirigelin laakiin waa mid aniga ahaan niyadeyda ka timid inaan barto runtii rajada aan ka leeyahay mechanicalkana ma ahan rajo aan hadda halkan aan ku soo koobi karo sababtoo aan rajada aan mechanicalka ka leeyahay waa rajo aad u weyn oo maxaan ku soo koobi karin waana mid aniga iga timid inaan barto mechanicalka mana rabo inaan xagan ku sii daayo waxaan rabaa inaan ka gaaro heer aan ku yeesho magac maadadan la yiraahdo mechanicalka iyo sidii waxaan rajadeedu ma ahan inaan furfuro laakiin waxa weeyaan rajadeedu hadda in aan anigu aan soo saaro wax dhaqaaqaya gaari dhaqaaqinaan rajadeedu waa taa oo rabo inaan runtii aan meel ka gaaro maadadan la yiraahdo mechanicalka inuu ilaahayna uu garab taagnaado ilaahay baan ka baryaa inuu meel khayr qabtano igu geeyo aan ku faraxsanahay inaan barto maadadan la yiraahdo mechanicalka runtii waxaan ka helay kulliyadda farsamada gacanta Jigjiga Polytechnic College waana maada aad u qaaliya runtii waxaad badbaadinaysaa waa dad waayo waxaad sameynaysaa waajiin dad waxaana gaariga fuulay dad baa fuulay dadkana waxa la rabaa inaad adigu ku badbaadisid waayo hadii aad jiinkan aad meel ka hadhow kama bari kamaal haduu gaarigii uu meel u baxo wax ku dhaco qofkii de gaariga xiray baa ayaa qaladka iska lahaa oo gaarigan si qalad ah u sameeyay runtii anaguna waxaan rabaa inaan si wanaagsan aan u barto sida ay macallimiinteedu wixii barana aan u fahmo oo aan si wanaagsan hadhowna aan magac ku yeesho maadaama mechanicalka inaan xaan ku joojiyana mar magacaygu waa Cabdirasaaq Jamaal Ibrahim kana bartay Jigjiga Polytechnic khaasatan department automotive waxyaabaha igu dhaliyay inaan bartana waxa weeyaan waa dhibaatada ka taagan gaadiidka si aan u xalliyo dhibaatada waana shayga labaad ee loo baahan yahay ta koowaad waa caafimaadka ta labaadna waa gaadiidka si aan u xalliyo dhibaatada gaadiidka sababta igu dhalisana waxay tahay maadaama iyaga loo qaatay xukuumaddeena 1 iyo 2 si xirfad nin walbaba nin xirfad leh si uu shaqaysto ta koowaadna waa ta koowaad ee loo sameeyay digjoojinta xirfadda marka anigoo ka faa'iideysanay xirfadda maxayday waxaan bartaa fildigaas sababta igu dhalisana waxay tahay bari ka maalin si aan ugu shaqaysto oo maxayday naftayda aanan ku tiirsanaan noqon si aan uga baxo shaxaadka iyo mashaqaystanimada ta igu dhalisana waxay tahay si aan ugu naftayda u gaarsiiyo heer ama aan ugu shaqaysto xirfadda aan bartay bari ka maalin si ay anfacdo aniga adigu aan soo barana xirfadda mechanicalka ama gaadiidka isku dayana inaad darawaliso mid kamid ah gawaarida ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee keena shilalka gawaarida kaas oo khasaaro badan nageysta qof aan aqoon u lahayn oo aan xirfad u lahayn inuunan ma garanaysaay hadii uu xataa dhaqaajiyo oo uu gaari dhaqaajiyo inuuna meel la gaareen oo una taraag dheer ku bixi kareynin inuu ma garanaysaay xaafadda iyo unan dhaafin ma garanaysaa meelaha agagaarkeeda mooyaane waayo de waxa iman karta cilad ba ku iman karta wixii waa birtaasina way iska cilad badnaan kartaa waxa wax ka noqon kara wax yaro ma garanaysaay aqoon badan u baahnayd inaad waqti soo siiso u baahnayd inaad maskax soo siiso u baahnayd laakiin kolkaad barata iskaba fudud baba oo aan aad ba ku sii dhibteen ayaa laga yaabaa inuu gaari wax ka noqdo adoo socdo meel cidla marka waxay kugu kalifaysaa inaad dad iyo u yeerato ma garanaysaa dad aqoon leh iyo dad xirfad leh oo ma garanaysaa wax soo bartay inaad u yeeratay kugu kalifaysaa marka si ayna taasi lacal hadaan gaari ka haysto oo ma garanaysaa ama ku aan leeyahay ama ku aan badadba lacal aan ka haystaba si ayna taasi ugu dhicinna
way ku jirtaa tani oo waxaan u baranayay waxa weeyaan sidaan waxyaabahaas iigu dhicin inaan ma garanaysaay aan uga hortago shilalka faraha badan iyo ma garanaysaay gawaarida ma garanaysaay waxyaabaha ugu sii sababa haddii aynu qadar ka reebno waxa weeyaan qofkii aqoon qof u leh ma aha qof waqti soo siiyey ma aha shaygan uu wato ee uu isticmaalayo qof waqti soo siiyey ma aha qof ay maskax ay kaga soo baxday ma aha marka maadaama uu ma garanaysaay qof uunan aqoon u lahayn uu yahay waxaa iman karta sidiina la baray biriigoo kale waa shilka ugu badan ee ma garanaysaay lagu galo biriigoo kale ayaa adoo wata gaadhigii oo meel laami ah saaran yaa waxaad ka dareemaysaa kolkaad nin xirfad u leetahay cagtaad ka dareemaysaa inuu rabar sii daayey say macallimiintuna bareen inay saliiddu ay ma garanaysaa kaa dhammaatay biriigga halkaa markaad ka dareentid baad gaadhigii ma garanaysaa ee horteed istaagaysaa laakiin kolkuu qof yahay qof aan aqoon u lahayn wixii intuu halka ugu dambaysa geysta gaadhigii unbuu si ikhtiyaara isaga soconaya waddada biriiggii inay saliidi ka dhammaatay sidana la baray inay ma garanaysaa rabar uu qarxay inay maahay cadadka biriiggu ay dhammaadeen qofkii qof maadaamuna aqoon u lahayn uu yahay midda kale waxaa kaloo jirta siday macallimiintuna bareen guluubaa jira halkaa dhashkabarka hortiisa dirawalka ugu yaalla guluubadaasi waxay ku siinayaan calaamad iyo tilmaam bay ku siinayaan gaadhiga cilladda ku jirta ayay ku tusinayaan dee qof aadan aqoon u lahayn kolkaa tahay ma garanaysa guluubkani wax alla wuxuu ka hadlayo guluubkaasi markuu baxo ama waa ku cas ama waa ku buluuga ama waa ku huruuda waxbuuna tilmaamaya ama waa fallaadh ama waxbuu jeeda marka adigu wax kuu sheegaya muxuu dee kuu sheegay kolkaad ruux soo bartay aad tahay yaad wixii fahmaysaa laakiin haddaadan ahaynba qof soo bartay wixii ma fahmaysid waa iskaga sii soconaysaa shilalkana taasaa ma garanaysaayey inaa laga yaabaa inay kusii dardarayso marka waxaan odhan lahaa walaalahayga ma garanaysaayey birta ma garanaysaayey gaar ahaan khaasatan xagga birta isticmaala ama wata ama ma garanaysaayey makaanigba ka ah inay bartaan xirfaddan si ay ma garanaysaayey lafahooga ay bal awalan iyana dad kale waxa u qanaysa in lafahooga ugu badbaadaan ani ahaan waxaan ka aaminsanahay qofku uu ergisan karaa gaari uuna barashadu dhib kuma ah liisan waad qaadan kartaa laakiin waxaa isweydiinaya waabaad ergisatay gaariga ammaan kuga ama shaygii dad baad ka soo qaadatay haddii dhibaato ka timid aad garanay xageebaad la marsaa isweydiinaya qofka gaariga aad soo qaadatay waxaa muhiima bir yar haddii waxaa jira bire yar oo naqan biraha yar hadday meel wax kaa noqoto sidaad ku ogaan kartaa baa isweydiin adiga ma garanaysid qof aanad garanin oo aqoon ama u lahayn baa ku imanaya lacag yar ayuu kaaga qaadanaya waxaa qurux badan inaad ardayga inuu qofku yimaado si shakhsiyaantiisa u barto inta kale noqotay arday qofkan baranaya ha ahaado qof khibrad u de kalsooni ka qaba inuu sheegi baran lahaa sida daraaddeed walaalahayga aan darawaliinta waxaan kula talinayaa inay sideeda si degdeg ah farsamada kulliyadda Jigjiga Polytechnic inta uga soo qayb galaan ay u waditaan horta qofku hadii uu barto sida loo wado wuu wadi karaa balse laakiin waxa aad gaarigan ku aad adigu wadisay kaliya un aad saaran tahay ma dad bilaadan baa soo fulay gaariga hadii aadan aqoon u lahayn meesha ay cilad kaga imanayso iyo sida ay ciladu uga imanayso runtii horta waxa gaari oo taraag weyn dheer aad ku bixi kartaa ma jirto waxaan magaalada dhexdeeda aad ku socon hadii uu ka xumaadana de bari kamaalin geerish bas ka soo istaajinaysa xad leedahay gaarigan uu xumaado meel ku xumaadana ma garanayaa la hagaajiyo runtaan waxaan oranayaa dadka ay khusayso ama de wata gaariyaasha ee darawaliinta ah aanan aqoonta u lahayn sida loo wado sida loo furfuro ama loo hagaajiyo gaariga waxaan anagu kula talin lahaa kuwaan in lahaa in ay bartaan oo ay de ku dhaqmaan sidii ay u hagaajin lahaayeen waayo waxa gaariga soo fulay waa dadkan waxa laga rabaa inaad adigu badbaadiso waayo adiga gaariga wada adiguna haddii aadan aqoon u lahayn sida loo hagaajiyo dibkeed bay leedahay nin walba de horta wax kasta xirfad way u baahan yihiin laakiin haddaad liisan iska qaadatid waa dhibteeda liisan qof walba oo qaadan karaa qof aan wax baran baa qaadan karaa laakiin cilada jirtaa waxay tahay gaarigan maad garanaysaa siduu xagga ka xun yahay siduu u shaqaynayo waxyaabaha khaladka ku iman kara taas qof walba iska baran karaa qof aan wax baran oo maanta maxay aan qori karayn uu qaadan karaa liisan sababtoo ah imtixaan buu gali gaadhidka sida steerinka loo qabto garan sida maxay furaa loogu rogo wala bari laakiin dibta jirta waxay tahay muu garanaya cilada gaadhiga xaggu ka timid ma ijiinkay ka timid
mise maxayday qaybta leydhashay ka timid ma fireejadan shidmayn waa inuu qofku kala gartaa de gaadhigu sidee u shaqaynaya xaguu ka xun yahay cilladda xagee ka timid laakiin hadduun garanayn qofku cilladda xagee ka timid maxayday cilladda xagee ka timid laakiin ma wadi kara de gaadhi liisana inuu iska qaata maaha markaad wax qaadanaysa waa inaad wax khimradiisi laata ama xirfadiisii waa inaad garanaysa gaadhigu hadduu berri ka maalin uu kaaga fadhiisto meel buur ama ban inaad hagaajisan kartid ood khimradii adu lahayd waa inaad la soo baxday laakiin haddaad liisan iska qaadatid ood gaadhi iska kaxaysid de waxaad qaadaysaa mas-uuliyad gaadhi idil baad kaxaynaysaa dad idil baa ku saaran iyadoo taa laga taxadirayo haddana waa inaad garanaysid cillad hadday ku timaado si aad u hagaajin lahayd ardayda wax ka barata kuliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta gaar ahaan waaxda gawaadhida ayaa waxa ay kula dardaarmayaan dhalinyarada deegaanka ah ee iyagu aan baran xirfadda makaanikalka isku dayaya inay noqdaan darawalin inaysan naftooda been u sheegin oo ay soo xarudaan kuliyadda polytechnic oo ay si weyn ugu takhasusayaan xirfadda gaadiidka iyagoo aan wax kharasha kaga bixin dhibaato male inaad barato gaadhigu waanaad baran kartaa si fudud laakiin waxaa isweydiina ijiinku gaadhigu wuxuu ku socdaa waa darawalnimo kaliya kuma socdo ee wuxuu ku xidhan yahay horta inaad qaybtii wadnaha gaadhiga inaad ka barato wadnaha gaadhiga oo ah ijiinka iyo meelo badan oo kala mid ah inaad horta meesha barataa ka muhiimsan ee marka aniga walaalahay waxaan ku wacyigelinayaa inaad si degdeg ah iskaga bartaan waayo liisan aad qaadatay uma arkaan dhibba kuma faa'iido kale kuma leh waa adoo la dhaca ama adoo meel bannaan socdo safar ku jiro inuu gaadhiga dhibaato kaaga timaado maxaa la isweydiin gaadhigii ammaan uu kugu ama dad baad u wadaa sideed u hagaajisan kartaa adigii ma garatid waa inaad meesha waxay kugu dhib kugu noqonaysaa marka inaad meesha kaga timaado ood nin u yeedhata qof dee ku hagaajiyo sidaa daraaddeed waxaa ka qurux badnaan lahay intaad qof aad u yeeranayso adiyaan naftaada inaad barato waxaan ku wacyigelin lahaa waa dee liisan iska qaado oo maahan laakiin waxaa weeyaan waxaa wanaagsan inay bartaan sida gaadhigii loo hagaajiyo sida loo furfuro dhammaan inay bartaan berri marka ay bartaanna inay dee gaadhiyaasha ay dirawaliin ka noqdaan ay wada waayo dadka marka way badbaadin karaan haddii ay bartaan sida gaadhiga loo hagaajiso waayo haddii cilad ku timaado garan waayo uu dadkii iyaga oo meel bannaan ah taraag dheer lacala iyagoo u baxayo oo meel bannaana maray gaadhiga hadduu kaga xumaado una hagaajisan karin dee dadkii wuxuu kaga tegayaa meel cidla ah iskaga dhaqaaqaya gaadhigii ka bacdi ilaa inta loo raadinayo de nin wax bartay oo yaqaana sida wax loo furfuro horta ma xumo inaad liisan qaadatid laakiin haddana waa inaad xirfadeeda ku darsatid waa inaad maxay hayday maanta waad haysanaa dee fursad xirfadeed waan haysanaa oon wax ku baranno polytechnic baa joogta waxaan ku wacyigelin lahaa walaalahayga maxay hayday liisanka iska qaadanaya inay xirfadiina ku darsadaan liisantii way qaateen laakiin xirfadiina ha ku darsadaan ta kale dhalinyarada waxaan ku wacyigelin lahaa iyaduna inay qacmaha isi saartaan maaha waa inay kasoo qayb galaan maxayday xirfadda jigjiga polytechnic waa inay yimaadaan nin walba xirfad fursado shaqo si ay u helaan waxaan odhan lahaa walaalayana maxayday xaafadaha iska jooga fikirka mashaqaystinimada aaminsan iyo inay kasoo qayb galaan xirfadda si ay berri ka maalin iyaga oo anfacdo daawadayaal weli waxaanu bartanka kaga jirnaa waa barnaamijkani dhigjoojinta xirfadaha oo markaas aanu ku soo qaadanaynay kuliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta gaar ahaanna waaxdeeda markaas gaadiidka waqti xaadirkani waxaanu ku sugannahay waa waaxda markaas dhinaca gaadiidka waxaana kaga sii sugannahay waa qaybta electriga amaba xiriirinta nalka gaadhiga oo aanu doonayno markaas inaanu iyadana u guda gallo si aanu markaas ugu kurgallo sida ay ardadani markaas u baranayaan dhinaca electriga amaba xiriirinta nalalka waaxdan waa waaxda dababka gaadiidka iminka saacadan waxaan qaadanay practical ku saabsan lighting systemka ama leerka gaadhigu sida kolba uu u shaqeeyo tusaale ahaan oo kale iminka marka leerka gaadhigu sida uu u shaqeeyo horta 8 qaybood baa loo qaybiyaa markii koowaad iminka practical ku qaadanay weeyaan lighting systemka 8 koowaad qaybtii koowaad ka qaadanay haddaan san practical idinka siiyo marka koowaad dab horta marka loo baahan yahay battery baa loo baahan yahay batteryga gaadhigu waa inuu marka koowaad u shaqeeyo marka batterygaas wuxuu leeyahay minus iyo plus buu leeyahay minuskiisa iyo pluska waxa ku kala xidhaysaa laba xarig baad ku kala xidhi minus iyo plus labada indhood hore ayaa ku daarmaya marka remote switch kaas oo kale waxa weeyaan
laydkii dheeraa iyo laydkii fogaa haddaan kuu kala sharaxo lightingkaa systemkaa hore ama ka dheer iyo laydhka gaaban laydhka dheer horta faa'iidadiisu wuxuu yahay markaad highwayga gaariga kale aad socoto ee una gaari kale xaggaa hore una kaaga soo jirin ayaad shidan kartaa laakiin haddii gaari kale xaggaa hore uu kaaga soo socdo oo aad laydhka dheer shidato dhib waxay ku noqonaysaa darawalka gaariga kala wada waayo laga yaabaa laydhkaa indhaha xagga hore ka haya inuu isaga shaaca ku keeno gaarigiina uu gadoomo markaa looma baahna inaad laydhka fog shidato marka aad wadada gawaari badan ku socotaan kaliya waxaa loo baahan yahay inaad laydhka yar shidato laydhka yar markaad shida wuxuu faa'iido leeyahay inuu in yaro kugu filan hortaada uu kuu iifiyo tusaale ahaan oo kale laydhka haddaan kuga cabiro kilomitir ahaan oo kale ilaa 100 kilomitir oo kale laydhka markaad keligaa tahay wadada waad shidan kartaa laakiin laydhka gaaban ilaa 40 mitir ayaad ka shidan kartaa 40 mitir markaa gaariga soo socda waxa faa'iido ku yeelanaya ma jirto haddaan kuu sii wado bismillaahir rahmaanir rahiim lighting system ko kale marka loo jeedo iminka gaariga marka laydhka waxaan u qiimeynaa iminka kan oo kale waa tailor light system baa la dhahdaa halkaas waa parking system oo marka gaariga markuu parking galayo inaad taayira cad birbirshada aad taabato oo kale marka labaad kan waxa weeyaan brake light gaarigii markaad brake qabato ayuu xagga dambe casaynaya marka casaankaas wuxuu tilmaamayaa in gaariga ka dambeeya uu istaago tusaale ahaan kale iminka markaad meel goolado kale ka baydhayso aad gaariyo kala baasayso tan baad shidanaysaa tan markaa bidbid aad kaga siiso waxay tusaale muuqdo u tahay in gaarigan ama aad dhaafdo ama goolad aad ka laabayso hoonkii oo kale isagii waa kan wuxuu faa'iidaysi u leeyahay iminka hoonka tusaale ahaan haddaan ku siiyo waa kan xarigiisii waan soo qaadanaynaa waa kan sanbuu shaqeynaya saas oo kale uu shaqeynaya waayo isagu wixii deeg adoo wadadii oo kale ku socda markuu ka soo horbax gaariyo kale Soomaaliyeed arag inaad dheertida adeega joogo xoolihii oo kale wadadii iyaga socdo ku dhaafaya marka xoolihii iyo dadkiiba inaad aayar dheertidaado ayaa loo baahan yahay hadda qalabkan isagoo xirxiran yaanu ku nimaadnay oo markaas practical aad ku qaadanaysay waxa dhici karta hadda qalabkan uu xirxiran yahay mar uusan xirxirnayn ama fiilooyinkii aysan sidii loogu talagalay in isku xiriirsanayn baa dhici karaysa ama baad la kulmi karaysaa marka waxaan jeclaan lahayn fiilooyinkan bal intaad kala furfurto in markaasi aad sidii loogu talagalay markaasi aad u xirxidho si markaasi aanu u fiirino heerka aqoonta aad markaasi ka gaadhay markaasi dhinaca electriga ama dhinaca nalka inaad markii koobaad isaga minuska aad geliso minuska halka xariga waa inaad markaa iska hubisaa inaad caadi ugu xidhay iyo in kale waayo xariga minuska markaad bayteriga ku xidhayso hadduu in yaro dhaqaajina leeyahay ama una ku xidhnay bayteriga kuma shaqeynayo bayterigaasi markaa dabka xarigaas kuma gudbinayo iminka wayarkan oo kale kana waxa weeyaan waa balaaski bayteriga marsan markii horeba kuu soo sheegay si uu leeyahay minus iyo balaas buu leeyahay minus iyo balaaskiisa minuskii markaad iska tijaabisay inuu si fiican kuugu shaqeynayo talabaad waa inaad tijaabisaa ood niyadda gashataa bayterigii horta ma kuu shaqeynayaa balaaskiisii xarigii markaad geliso bayteriga ama kuugu soo noqdo bayteriga wuxuu leeyahay 1 2 3 4 5 6 god 6 god waxa ku jirta acid baa ku jirta acidaasoo kale waa inaad bayteriga marka koowaad inaad iska tijaabiso horta acidan ma kugu filan tahay kugu jirta mise kuguma fila waayo bayteriyada waxaa loo qaybiyaa dheer bayteri iyo bayteri nool iyo bayteri dhintay iminka tusaale ahaan kale gaarigii markaad soo qaadatay haddaad bayteri dhintay un aad soo duldhigato gaarigii ignition systemkiisii iyo lighting systemkiisii midna kumaba shaqeynayo marka koobaad all in all tijaabi inuu bayteriga gaariga kuu shaqeynayo markaad tijaabiso minus iyo balaaska soo qaadan ood ku xidhan tan labaad rarely average balkan jira 4 god buu leeyahay 4 god sidaad arkaysa waxa ku xidhan 4 taayir xarigeed arkayso 4 xarigeed arkayso kaas aan weys waa balaaski bayteriga balaaska bayteriga markaad halka ku xidho 4 bayteri ta waatan HF taas oo argumenti HU iyo HL da 4 labada xarig baad soo qaadi balaaskaas aad ku xidhay balaaska bayteriga aad u keenay ka bacdi xarigaas oo argumenti isagu waa halka ilaa aniga waan maray HU daas aad ku xidhay isaga ishii waatan lighting system ama average ka fog baad saa u gelinaysaa asiga tusaale ahaan oo kale markaad halka xariga ku xidho sanbaad ugu xidhay iminka intan oo kale HF iyo HU iyo HL iyo EO la yiraahdaa afartaasi waxay faa'iido leeyihiin kolba xariga ku shaqeynaya in fuse gear wada arkaysa fuse gear in la geliyo afartaas ay ku kala shaqeeyaan markaad intaa xiriiriso ka bacdi waxaad tijaabinaysaa dimeter switch-gani ma lighting-kii fogaaba ku shaqeynaya mise lighting-kii raaba ku shaqeynaya tusaale ahaan oo kale markaan tan u gelino waad arkaysaa maxaygiiba ku shaqeynaya mise iminka haygii oo kale oo kaa markaad highwayga keligaa socotaad shidanaysaa markaad laakiin keligaa tahay waa inaad kaa yara naqashidato sidaa uu markaa kugu shaqeynaya ta kale in labaad iminka hoonkii kale waan kuu sheegay waa kan si aad kaga ilaasay wadada markaad keligaa socoto xoolo iyo inay wax kugu soo socdaan isagana minuskan iyo balaaska ma taari dhid buu ku waran laba hoon baa jira midina waa kan midina waa ka xagga hore sida kale kaaga muuqatay isaguna halkaa ku yaala kaas isagu labadan xarig buu ku shaqeeyaa adiga arkay halkaas arkimaysa labadan xarig iminka tusaale ahaan oo kale
labadan xarigo kala kala furaysaa labada xarigo kala markaad kala furto waa kan labada homo kala duwan yihiin kana waa kan maatan dhisnitaasina waa kan saas buu shaqeynaya markaa kan sida hoonkan oo kale weeyaano dhihid buu isna ku oranayaa sidii markii hore aan kaaga dhawaajiyo kala waa kan sidii markii hore aan kula dhawaajiyo kala waa kan waka ila zaa'inad buu shaqeynaya magacayga waa Ridwan Maxamed Yuusuf haddaan kuu sheegay sababta aan u soo galay filligan inaan barto horta waxa jirta anin nafsi ahaantayda oo kale ayaan aad u jecelahay inaan barto such like gawaarida wadidoodii oo kale furfurkoogii oo kale markaa maadaama interest gareynayay inaan barto xifradan horta waa ilaahay mahadi inaan deegaankeena tan oo kale ka hela aanan ka barto ilaahay baan ugu xamdinaqaya waayo sometimes mayba jirinba in xifradahan oo kale aynu helo laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta anagoo dalkaygii joogna deegaankaygii joogna inaanu xirfad walo gacanta aba baranaa aad baa annaga noogu tahay faa'iido dhalinyarta qayrkayna waxaan ku waanin lahaa waxbartaan dhihi lahaa waxbarta farsamada gacantu aad bay u fiican tahay aday ku anfacaysaa waayo waxbarashadu waxa weeyaan waxbarashadu waa wax adi naf ah furaha nolosha ama wax adiga ku quseeya meesha doontaba tag adun bay ku anfici waxa doonto baro maadaama adiga ku anfacaysa marka waxaan dhalaadhaa dhalinyarta qayrkayga waxbarta baan dhihi lahaa makaaniga noqdo aad baan u jecelahay jacaylkayga iyo yar rabitaankaygina ilaahay bay rubeeyay oo waxaan ka helay deegaankaygan ka helay maanta fursadii koobaad waan helay insha Allah master degree iyo master waan qaadan doonaa insha Allah kulli dumar waxay aaminsan gabadhu wax ma qaban karto laakiin wuxuu inaan ku qabto gabadhu way qaban kartaa wuxuu inaan ku qaban karo gabadhu way qaban kartaa rabitaankayga way rumeeyay waan jecelahay insha Allah magacaygu waa Daawud Seeli Cabdiqaadir waxaan bartaa kulliyadda teknikada gaar ahaan qaybta makaanig ani dhankayga haddaan ka hadlo waxa igu dhaliyay maadaama aanay jirin dhalinyar qayrkaya oo da'dan leeg oo wax barata in aan anigu aan wax qabto waxna u taro ka caawiyo xagga leerka meel walba ardayda walaalahaya iska kaashano sida wiilkayga horeeya Asma Ridwan dhankaana iyagu iga caawiyeen marka taabaan alxamdulillah waxay igu dhaliyay taa weeyaan waayo liisan kaliya horta wax ma qabanayo kow waxa aad baranayso horta waa inaad cilmigeeda lahaato waayo ingiriisku waxa dhahaan ignorance is enemy of life jaahilku waa cadowga nolosha marka koobaad waxaan aad qabanayso waa inaad horta fikirkeega iyo wax qabadkaaga u muuqdo laakiin kaliya hadda steerinkan haynaya mana garanayo gaadhigiga haday cilad ku timaado waa dhibde waayo waxa dhici karta iminka adigoo taraago kala u baxay ama meel fogootay gaadhigi meel banaana wax kaaga noqdo yaa ku hagaajin yaa wax ku qaban adu lafahaagi waxba uma baran yaa marka wax ku taray meel kastaba aad u baxday horta waxaan aad baranaysaa ama waxbarashadani noloshaadii faa'iido leedahay tusaalahaan kale iminka markaad meel fog u baxdo dad adigu garanayso oo tan baratay adaa gaadhigaaga hagaajisan kara laakiin haddaanad garanayn badii yaa ku hagaajinay liisan kaliya waxa kuma qabanayo marka waxaan kula talin lahaa dhalinyartan walaalaha iyo ama qayrka iyo iyagu liisanka kaliya qaatay iskuna dayay inay magaalada dhex socdaan walaalayaal maan leeyahay horta marka koobaad waxaad baranaysaa waa in adig ka go'naato waayo ka go'naanshuhu waa wax adig guush ku horseedi kara guushaaduna waxay tahay horta marka koobaad waxaad haysato oo aad taqaano marka shaqadiinima maadaama ay noqoto inaad shofeerin noqotaan liisan kaliya ku koobine barta waxbarashadii barta ogaadana mechanical-ki wuxuu yahay waayo gaariga wada gaajin kartaa ma hadaad mechanical-ki barato shilka badan waxa riday waa ruuxii 2 bilood buu dhiganaya darawalnimo marka soo qaato liisankiina waxa soo baxaya darawal aan dhameystirnay
laakiin hadduu makaanimo qaato waxaan aaminsanay xataa fiyuus gubtay ma bedeli karo kan labada bilood digtay marka waxaan aaminsanay insha Allah inuu ku ma wada karo ha buuxsado inuu noqdo makaanig waxa aqoon baa loo baahan yahay in gaariga meesha ka xun aad eegtaa loo baahan yahay in haddii bayterigu uu ku shaqeynay marka koowaad inaad tijaabisaa loo baahan yahay waxaasoo dhan marka qofka laysinka haysta ma garanayaan u malayn laakiin qofkan makaaniga ah ee garanaya makaanignimada ka soo baxay waxaan uu garanayaa isagu sababtoo ah wixii waxbuu ka garanayaa haddii uu gaarigu ka istaago ciladii meesha kaga timid buu garanayaa wuu furfurayaa haddii qaybta leerka ka xumaado leerkii buu hagaajisanaya marka waxyaalo badan baa ardaygan kale ku dhaama kan uu iska soo qaatay waxaa laga yaabaaba inuu muddadii uu baranayay 2 biloodayd isagoo oonan aad active ugu noqonin yacni iska soo baxo laakiin markii uu laysinkii uu haysto uu makaanigiina haysto waa nin isku filan yacni hadduu eega meel dhexoo kale gaarigu wax kaga xumaado isaga qabsan kara waxaan ku waanin lahaa inay cilmiga ay bartaan waayo horta wax adiga ka go'an uu faa'iido ku leeyahay eeg tusaalaha imika arday baan ahay buug iyo qalina ma wato horta dawacad ardayga waxa loo yaqaanaa ninka buuga qalinka iyo diriiska dhammayska tiran leh wax baranaya waxaan taa uga socdaa ninkii markuu leeyahay liisan baan wataa waxna waan wataa gaarigii mechanical-kiisina ma garanayo dee uu kala dhiman yahay ardayguna inuu kala dhinaado waa laga qurux badan yahay marka walaalahay waxaan kula talin lahaa hawshan idinku aad gacanta ku haysaan inaad ka mar dhalisaan baa qurux badan waayo geedka marka koobaad beeraysa wuxuu u baahan yahay inaad waraabiso oo ka bacdi uu baxo markuu baxana aad midhiisa gurato marka geedkan aad beerteen hamigiinima maadaama ku soo dhacday inaad gaarigii wadataan aad liisan qaadataan barta baan odhan lahaa mechanical-ka gaarigii iyo wadidiisiiba dhalinyaro noocaas waxaan ku bacdin galay maadaama liisanka qaateen makaanimadan ah ku darsadaan maadaama deegaanka uga keenayaan waxaan ku wacyigelin lahaa wiilasha la soo baxay liisinka bilaa makaanig in ay makaaniga bartaan ilaahayna ku garab qaban ay dadaalkooda ku daraan ay markaa hadda kadib wixii ka dambeeya liisinka ku haysta inay makaaniga ku daraan baan ku wacyigelinayaa oo ay makaanigana bartaan insha allah taa baan ku wacyigelinayaa wiilasha qayrkee micnahan waxaan ku waanin lahaa waa walaalkay ii lahaa walaal waxaan ku waaninayaa inaad xirfadda soo barato kadib aad micnihii aad qaadatid laysinkaaga adigoo oo tayeysan oo micnihii bulsho waxaad wadid gaadiidkaad wadid waxaa raaci kara dad adigoo oo dadka badbaadin kara nafsadaadana badbaadin kara iskuna qaban kara in micnihii aad tahay darwal buuxa ama makaanig buuxa matalan ka soo qaad gaadho wadaa wuxuu kaga soo halaabay meesha bannaanka uu iskaga soo tegaya anugu gaariga soo halaabo maanta ama indhaha iga goosta habeenimo waxaan aaminsanahay inaan 2 daqiiqo igu qaadanin marka waxaan ku waaninayaa walaal inaad timaadid waa waxbarasho bilaasha oo waxbarasho lagu dhiirigelinayo oo waxbarasho aroorba lagu imaanayo hili hoo lagu garabtaagay waxbarasho xukuumadda garab socoto walaal waxaan micnihii dhalinyarta qayrkay ku waan lahaa inay ay imaadaan Jigjiga Polytechnic College oo iyadoo waqtigu rab loo dhigi karo xilli alaal xilligu rab loo dhigayo oo chance u helay xilligaaba chance helay saadil xilliga loo dhigay saas ayaan ku waan lahaa micnihii
guud ahaan badawadayaal waxaanu intaas ugu soo afmeeraynaa waa barnaamijkeena dhiig joojinta xirfadaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo alaabahadahan oo kale aad ka dheehataan telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya iyo TV daawadayaal barnaamijkeena dhiig joojinta xirfadaha ayaa waxa idin soo diyaariyay idinlana socodsiinayay waa anigoo ah Cabdirasaaq Ibraahim Idaaja halka dhinaca kaamirada uu markaas iga caawinayay saaxiibkay Baalam Taye guud ahaanba waa bahda barnaamijka dhiig joojinta xirfadaha oo si isku duuban idinku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته